بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواء جنال كان ورك أودن بإسبورتسكا عياري دعكو عاوة لفلايو بارسلونا أو جول وين كجارتي لواندوسكي ريكور نوع أيو كاستعبر سيسونكا سيدا كله لمن يمال عابن تيسي كوشي uhoreysay ee Marcus Rashford miyuu dhaliyay kulankan sidoo kale waxa walba ugu baahan tahay xidig ka tagay Tottenham Hotspur oo taalo in loo dhisay loo rajaweyn yahay waa kuma xidigaas waxa walba ugu baahan tahay Real Madrid afartii koob bari kadib guuldaradii PSG ka soo gaartay oo ku soo laabanay saaxada kubadda cagta Spain sidoo kale maxaa laga yiri suuqa kala iibsiga Cristiano Ronaldo oo mar kale xidig weyn u soo jiiday naadi kubadda cagta Al Nassr waa kuma xidigaas maxaa ugu baahan tahay Darwin Núñez miyuu Saudi Arabia aadi doona mise Talyaaniga Xavi Simio iyo Garnacho miyay Chelsea ku wada beeri doonaan saacada soo socdo sidoo kale xidig ka tirsan Chelsea oo ku beeray naadi kubadda cagta Burnley waa kuma xidigaas Chelsea ma ciyaariyaan ka dhamaada ku soo dhawaada xaaji official haddii aad noo cusubtaa fadlan subscribe noo saar like dhasiin share gare oo la wadaag asxaabtaada mahadsan soo dhawaada saaxiibayaal channelkeena ku soo dhawaada xaaji official asxaabtaada la wadaag kuwa xiiseenayo inay maqlaan sports waxa ka dhacayo iyo suuq kala iibsiga oo meel xasaasi gaaray naadi kubadda cagta Barcelona ayaa kulankeedii soo gabagabeysay iyadoo ku adkaatay 5 gool iyo waxba goolal ay ka wada heshay Gavi oo 2 gool ah Lewandowski Fernandes iyo Marcus Rashford ayaa leeyahay wuxuu helay gooshiisii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka naadi kubadda cagta Barcelona Roberto Lewandowski ayaa barseasonkii 3 kulan ee dheeleen ka wada dhaliyay shabaqana gaaray Lewandowski marka waxa leeyahay waa xidig aan laga celin karin shabaqa marka la joogo barseasonka waa arki doona oo isku diyaarinta ay sidaas seasonka soo socdana waa arki doona qaybta oo ka qaado doono bandhiga naadiga iyo goolasha laga dhali doono waxa ogeyn seasonkii la soo dhaafay Barcelona inay aad naadi ugu gool dhalinta badan qaarad Yurub shanta Real ugu sarsareyso sidoo kale Gavi ayaa 2 jeer shabaqa taabtay halka gool ka mid ah Lamine Yamal oo caawinteeda lahaa caawin aad iyo aad loogu soo shaqeeyay marka Lamine Yamalna caawintiisii waa uu bilaabay numberka 10aad bankii horena 2 gool ayuu ku tuurtay marka waxa leeyahay weerarka Barcelona inaba caadi ma seasonka soo socdo waa Dani Olmo Ferran Torres Marcus Rashford Lamine Yamal Roberto Lewandowski iyo Rafinha lixley caadi ahayn oo Gavi iyo Badri gadaal ay ka sii jiraan marka waan arki doona Dani Olmo wuxuu ka qaban doono naadi kubadda cagta Barcelona seasonka soo socdo maantana kulankan gool ayuu caabiyo marka inaba caadi ma badal inuu soo galo gool ku lug lahaa Marcus Rashford waa ka gooshiisii ugu horeysay ee Barcelona ebed dhaliyay seasonkan oo amaada kula joogo naadi kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay inay registereen doonto goolahayaha la soo wareegtay Frank Garcia marka Garcia waxa leeyahay waa la diiwaan gali doona waan lagu dadaali doona hawaal waa ay leeyihiin naadi kubadda cagta Barcelona kulankii ee dheeshay ayaa dhaawac ugu baxay daqiiqadii 86aad Kubarsia oo dhaawac ka soo gaaray kulanka waa arki doona natiijada ka soo baxdo sida noqoto sidoo kale naadi kubadda cagta Real Madrid ayaa 41 bari kadib gooldarida ka soo gaartay naadi kubadda cagta PSG ee 4-0 ahead ku soo laabatay saaxad kubadda cagta Spain ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo socdo ma dheeli doonta leeyahay wax kulan isku diyaarina balse trading ayay ka soo mid qadeen waxaa la arkay Mbembe Dani Carvajal xidiga badan Arda Güler marka waxaa leeyahay isku diyaarintii ay ku soo laabteen gooldaradii PSG ka soo gaartay kadib wax banooni ma aysan dheelin fasax ay heleen oo ilaa haatan way cawaadayaan kulankooda ugu horeyn Osasuna ay ku daafuro doonaan horyaalka La Liga marka Real Madrid caawasho ay gudbisay balse waa laga diiday sidoo kale waxaa la arkay xidiga Rodrigo amba bahka ah naadi kubadda cagta Real Madrid oo markaan soo gaaray asina xirada tababarka Real Madrid asoo gaarigiisa wata ayuu imaaday marka waxa leeyahay ninkan ishiisa ilfi camaan asigu xoro inuu soo joogo naadi kubadda cagta Real Madrid inay fasaxday doonaysa marka waxa leeyahay naadi kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa xiisa gaar u muujinaysa Rodrigo kadib bixitaankii Son oo ka tagay naadi kubadda cagta Tottenham Hotspur marka Rodrigo Premier League loo gacan haatinaya xitaa Arsenal Liverpool dad baa rabay laakiin hadda Tottenham ayaa ugu cadcadaaliyay xiisaha loo hayo xidiga sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa dalbaday in loo keeno Mason Greenwood oo Realka
sacuudi carabi gaar ahaan naadi kubadda cagta al nasr. Ronaldo ayaa ka shaqeynayo sidoo Greenwood ku imaan lahaa al nasr. waa arki doonaa hadda ayuu Joe Felix keenay hore naadi waa uu dhisay haatan markan Greenwood inuu keeno garabka bidix uu dheelo ayuu rabaa. marka seasonka soo socda Real ka go'an Ronaldo waa arki doonaa haddii ku saacidi doonaan naadi kubadda cagta al nasr xidigu dalbadan oo u keen doono. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah Darwin Núñez oo lagu gacan haatinayo Sacuudi Carabiya iyo Serie A midoo aadi doona naadi kubadda cagta Al Hilal ayaa dalab soo gudbi doonta leeyahay maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda xilliga noqoto. Al Hilal ayaa aad iyo aad u doonayso xiisaha xidiga Darwin Núñez xidiga reer Uruguay. marka waxaa leeyahay waa arki doonaa dalabka iyo qaabka uu noqon doono. kama marno naadi kubadda cagta AC Milan ayaa wada hadalo la furi doonto naadi kubadda cagta Liverpool si uu qaadato leeyahay Darwin Núñez. marka AC Milan warkeeda war weyn waaye Darwin Núñez ayaa soo gashay. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadi kubadda cagta Chelsea ayaa dhameystirtay xidigii daafaca ee Ajax ka imaaday soo bandhigtay. markan waxaa leeyahay Xavi Simeone iyo Garnacho ay u soo jeesan doontaa oo xoog ay saari doonaan. marka labadan xidigna waa laba xidig aad iyo aad loola xiriirinayo ku biirista Chelsea inka naftirkooda ay doonayaan. marka labadana waa u cadcad. sidoo kale xidigii ka tagay Tottenham Hotspur Son ayaa lagu soo waramayaa in saaxiibkiisa Richarlison uu dhahay bal aan taalo u dhisno ama u dhisa taalo asiyoo bartiisa Instagram ka soo dhigay Son oo taalo ah xidig laga sameeyay waxyaabaha qurxiyo aan jabaynin. marka sidoo kale naadi kubadda cagta Chelsea ayaa fasaxday Almanda Barroco kadib xidig kale oo ciidaheeni ah waxayna tiri fasaxa tahay wuxuuna ku beeri doonaa naadi kubadda cagta Burnley heshiiska joogtada ah weli wax amahan. marka xidigan Chelsea ma xidigeeda la kasaayo xidig oo baasoo wataa. marka Chelsea xidigan ayaa ka tagay leeyahay. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadi kubadda cagta Chelsea ayaa sidoo kale fasaxday xidigii reer Ingiriis ahaa hal oo marna garabka bidix ee daafac ka dheeli jiray marna qadax dheeli jiray ayaa lagu soo waramayaa inuu oo maray tijaabo kale oo Premier League ah wuxuuna ku biiray leeyahay naadi kubadda cagta Everton qiimo lacageed dhan 25 milyan ayaa lagu kala qaatay. marka ninkaana waa uu baxay waa uu tagay ayaa leeyahay. marka lacag 3 ilaa 4 milyan ayaa lagu dari doonaa ayaa leeyahay heshiiska ilaa 9 milyan ninkaas oo lagu la wareegay. marka ninkan ayaa ogolaaday asigana inuu ku biiro Everton wax kale. marka ninkan xidig muhiim ah waaye oo kulamada qaarna aad iyo aad ugu muuqan jiray goolal dhali jiray. marka goodbye laga leeyahay. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah naadi kubadda cagta Manchester United ayaa baraha bulshada kula wadaagayso taageerayaasheeda sawir ka dhan ah Bruno. sidoo kale naadi xidig kooxda kubadda cagta Konya iyo Mboma saddexdooda hal sawir galeen ay baraha bulshada aad iyo aad ugu wareejinayaan kadib ku guuleysteen koobkii USA lagu dhigayo oo naadiyaasha kubadda cagta Ingiriiska loo qabtay. marka xalay ay ku guuleysteen sawirkaas ayaan hadda baraha bulshada la wareegayaan. waa guul u bilaabanaya naadi kubadda cagta Manchester United ay leeyihiin. marka waa arki doonaa seasonka soo socda iyo goolasha dhaliyaan iyo bandhigoodii xil ciyaareedka waxay ku saleed doonaan. laakiin Amiron taariikh inuu dhigo rabaa wuu ku faanaya Manchester iyo ciyaartooyda ciyaaryahan walba la weydiin wuxuu leeyahay yes xil ciyaareed ka duwan xil ciyaareedyadii hore waay xitaa tababarka mar onaan wax laga weydiiyo wuxuu dhahay isku mid maahan hadda waa wada shaqeynayna by grouping iyo by one bo labadaba oo shaqeynaa. marka waa ku duwan yahay seasonadii hore ayuu leeyahay. Amiron 20 sano soo socda inuu Manchester si hogaamiyo rabaa. waa arkeena Konya iyo Mboma waxay ku soo kordhiyaan arintaskana weli waa isku lifaaqanto waa isku xaalad cakiran waa. marka iyadana meesha ku dhamaato arki doonaa. wakiilka waa uu ka degay Leipzig laakiin weli natiijo ma ka soo bixin. marka waxaa leeyahay natiijo walbo ka imaato dhankaas waa wax u farxa ama Newcastle ama Manchester United guul labadaba oo rajeyna meeshii asiga u qorxana inuu aado oo mustaqbalkiisa oo ka dhax arko. sidaas iyo amaana al muuqaalka xiga noo balane. bye bye subscribe like share.